gordhow soo gabagaboobay shirkii golaha wasiirada dawladda Soomaaliya oo uu shir gudoominayay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble shirkaas waxaa looga hadlay arrimo kala duwan oo ajandayaal kala duwan ayaa maaragtay lagu soo qaaday waxaa warbixino laga dhageystay wasaaradaha amniga iyo gaashaandhigga oo ka warbixiyay warbixinadii u dambeeyay ammaanka sidoo kale waxaa wasaaradda caafimaadku inay ka warbixisay caabuqa coronavirus iyo xaaladihii u dambeeyay iyo dadaalada socda waxaa sidoo kale warbixino laga dhageystay wasaaradda maaragtay guddiga abaaraha oo ayana ka warbixiyay xaaladda gurmudka soconaya gobolada ka soconaya maaragtay dawladdu ay hormuudka ka tahay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo shirkaasi gudoominayay waxa uu kula dardaarmay uu sheegay in dadka Soomaaliyeed ay u diyaar garoobayaan bilashada bisha barakeysan ee Ramadaan sidaa darteedna wuxuu ugu baaqay ganacsatada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in ay qiimo dhimis u sameeyaan shacabka in ay isgargaaraan xilliganna ay tahay xilligii maaragtay laga wada faa'iideysan lahaa qofka kale walaalkiisa dhibaataysanna inuu gacan siiyo sidoo kale ra'iisul wasaaruhu wuxuu ka hadlay arrimaha ammaanka waxa uu sheegay in ammaanku uu aad muhiim u yahay xilliga bisha barakeysan si dadka ay u helaan fursad ay ku cibaadeystaanna laamaha amnigu waxa uu kula dardaarmay oo maaragtay ku booriyay in ay sare u qaadaan oo feejignaan xoog leh ay muujiyaan xilliga bisha barakeysan ee Ramadaan waxaa sidoo kale maaragtay warbixino ayana maaragtay laga dhageystay wasaarado kale ugu dambeyntiina waxaa halkaa lagu ansixiyay guddiga xubin ka tirsan guddiga doorashooyinka oo maaragtay wasaaradda arrimaha gudaha ay soo gudbisay